بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلشيدة reer Jabuuti ee qaaliga ah assalaamu calaykum ayaamahan dambe waxaad aragteen dhalinyaro badan oo ka dhiidhinaya dastuurka la farafareeyay iyo mudaxileedka lixaad ee loo soo kurkursanayo sidaas oo kale waxaad aragteen dad waaweyn rag iyo dumarba leh oo yakuna ka dhiidhiyay labada arrimood dhammaantood waxay ku celcelinayaan weed cad oo farafarayntaas waxba kama jiraan sharcina ma aha mana shaqayn karto mudaxileed lixaadna waa maya shacabka reer Jabuuti hadda lama khardi karo laakiin waxa la leeyahay oo toosh lagu raadinaya codkii indheergaradka reer Jabuuti indheergaradow waxa tihiin dadkii indho quraanjo wax ku eegi lahaa ee dameeridaan raacday noqon indheergaradow waxa tihiin dadkii wax ku miisaami lahaa cilmi akhlaaq iyo garasho runtii waxa tihiin koox aad loo xulay oo tiro yar oo bulshada ka dhex qabanaysa shaqooyin cayiman waxa tihiin macallimiintii injineeradii dhakhaatiirtii culamadii waliyayaashii ganacsatadii aqoon-yahanadii iyo kuwa badan oo kale ujeedka waxqabadka indheergaradku waa inuu horumariyo gobonnimada insaanka iyo garashada insaanka macallinow adigoo og qoldugsiyeedkaad ku dhigtid casharka in mararka qaarkood lambadu aynan socon marooxadu aynan socon tamaashiirta adigu jeebkaaga aad ka soo iibsatid mararka qaarkood warqadaha cad ee imtixaanka aad ku qaadaysid ay weydid macallinow ma aamusnaanbaa kuu taal ma mishaar 100,000 120,000 150,000 180,000 ayaad u afduuban tahay ma waxa kula gudboonaatay macallinow inaad u carartid Canada iyo dalal kale sheekhow sawdigii ahaa shakhsi haybad leh oo aad uga sifaysan aadna uga fog tuhunada danaysiga maadiga ah sheekhow waan xadiisi waxa weeyi waa run sheegi ee ma aha xaqiiqada dalka ka jirta baan indhaha ka xidhan dhagaha ka laaban oo ka hadli maayo ma sidaas baa rabtaa sheekhow inaad ummad ku hanuunisid dhakhtarow sawdiga markhaati ka ah cudurrada bulshada ku faafay eena daawo loo waayay ee ka dhashay nafaqadaro cadaadis nafsaani ah shaqo la'aan iyo nolol tayo xumo ah dhakhtarow ma waxaad kula gudboonaatay maxaa iga galay oo afkaad iska xidhatay Soomaalidu sawti hore u tiri nabarka la qariyo wuu qarsoomaa ee ma bogsado aamusnaantaadu wax badan way khabayn ee bulshadu ku bogsan mayso abwaanow sawdigii ahaa ruux maqla dawaaqa aan dadka kale maqal ruux arka waxa ka dambeeya derbiyada cabsi lagu dhisay ruux ereyadiisa ka soo qoda ceel biyo dheer oo qof walba qalbigiisa waraabiya kuna qaboojiya abwaanow ogsoonow erey aanan run ka imanin qalbi ma taabsado ma mushahardoonnimo baad ku aamustay aqoon-yahanow looma baahna inaad xarxariiqdo qoraaro akademiya oo aan saamayn lahayn iyo sheeko faneed oo romoosiya oo bulshada wax ku kordhinayn ma marin habaabis bulsho baa lagu adeegsanayaa garsoorow sawdigii ahaa noolaha dhifka ah ee xambaarsan runsheegnimada cadaaladda iyo xaqsoorka ma maanta ayaa dooratay inaad noqoto qalin lagu sharciyeeyo dulmiga
mise waxaad ilowday in garsooruhu uu yahay tiirka ugu dambeeya ee uu muwaadinku uu ku tiirsan yahay ay cadaaladuna ku badbaadi lahayd? ma waxaa kula gudboonaatay inaad aamusnaatid oo aad noqon weydid geed lagu hadhsado oo lagaga hadhsado baadilka iyo badheedhka cad ee nidaamka? indheergaradow, codkiina waa la raadinayaa. maanta xaaladda uu dalku ku jiro waa maalintii aa hadli lahaydeen. haddii aa aamusnaatiin, taariikhdu idigan aamusi mayso. waxaan doonaynaa runtii nolol hufan oo qancisa dhammaan bulshada, dhallinyarada iyo waayeel, jiilka maanta jooga iyo kuwa beri iman doona. waxaan u hadlaynaa badbaadada qarankeena awgeed. waynu guulaysan. reer Jabuuti ha noolaadaan, Jabuuti ha noolaato. إن شاء الله ونقول لسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.